Shirkadda daawooyinka sameysa ee loo yaqaan Johnson and Johnson ayaa ku dhawaaqday in bilowga sanadka fooda inagu soo haya ee 2023 ay gebi ahaanba joojin doonto u iibgeynta bootarka carruurta. Arrintani ayaa imaaneysa kadib markii 2 sano ka hor ay shirkaddu ka joojisay u iibgeynta bootarka carruurta amaba waxa bool-baraha loo yaqaano dalka Mareykanka iyo Kanada. Arrintani ayaa waxa ay sidoo kaleeto xiriir la leedahay kadib markii shirkaddani laga gudbiyay ilaa iyo 38,000 oo dacwadood oo ay ka gudbiyeen macaamiisha shirkadda kadib markii la ogaaday in wax soo saarka shirkaddani laga helay maado kansarka sababta. Maadadani oo lagu sheegay asbestos. Asbestostu waa maado la yaqaano oo xiriir la leh amaba haddii sida kale loo yiraahdo keenta noocyo badan oo kansarada jirka ku dhaca ah. Inkastoo shirkadda Johnson and Johnson war-saxaafadeed ay soo saartay ay ku beenisay in wax soo saarkeeda haba yaraatee laga helo maadada asbestos amaba maadooyin kale oo kansar dhaliyayaal ah, haddana waxaa isa soo taraya eedeymaha loo jeedinayo shirkaddan. Baaritaano madax bannaan oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in wax soo saarka shirkaddani laga soo bilaabo 1971 ilaa iyo 2000 laga helay xaddi yar oo asbestos ah, taasi oo meesha ka saaraysa beenintii ay shirkaddu beenisay in wax soo saarkeeda laga helo maadada asbestoska. Shirkaddu waxa ay sheegtay in wax soo saarka bootarka aysan gebi ahaan joojin doonin, balse ay ku bedeli doonto wax soo saaro kale oo u dhigmo tayadooda iyo caafimaadkoodana la hubiyay. Bootarka carruurta amaba bool-baraha waxaa aad looga isticmaalaa guud ahaan dunida, shirkaddanina waxa ay ku ahayd caan. Si qaasa Soomaalidu waa ay isticmaalaan. Haddaba maadaama la ogaaday in waxyaalo kansar dhaliyayaal laga helo, adigana daawanaya sidee u aragtaa